buuhoodle ayaa maanta xaaladeedu waxay ahayd mid aad u kacsan kadib markii ciidamo fara badan oo ku hubaysan gawaarida dagaalka ee gaashaman ay soo galeen gudaha magaalada buuhoodle. ciidamadan ayaa si codeer waxay ku mareen wadooyinka dhex mara magaalada buuhoodle waxaana ay ka sameeyeen magaalada hawlga dhinaca milatariga ah. saraakiisha ciidamada buuhoodle ayaa markii dambe waxay saxaafadda kula hadleen xeerada weyn ee ciidanka magaalada buuhoodle, waxaana halkaasi siraan sharaf kaga qaatay ciidamada gaashaanla sare Cabdifataax Kistiid Bayden oo isagu ah taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta ee gobolka Cayn. waxaana saraakiishan ay sheegeen in halkan ay digniin uga darayaan madaxda maamulka Khaatimo, kuwaas oo ay sheegeen in ay colaad horin ka wadaan qaybo ka mid ah deegaanka buuhoodle. halkan waxaa ku diyaara ciidanka gobolka Cayn oo diyaar u ah hawlgallo oo raba inuu ka sifeeyo caraasiirta dalka ku jirta. marka taliya ku soo dhawow. علي خيا Soomaalidu xataa raqba waa ku rageeda war buuhoodle ciidankii difaaci jiray ee shacabkiisa ku tiirsanaan jiray baa u taagan, waana magaalo dhulbaantay cid la iska hortaagi karaa ma jirto. laakiin siyaasadda qaldan ee ku dhex jirta ee caliya beeshiisaasi ay mas'uul ka yihiin uma dulqaadan doono. in badan baan ka indha qarsannay markii simadayada la aqoonsanaan waayey, ciidankayaga la aqoonsanaan waayey, wadaadadayada la aqoonsanaan waayey, cuqaashayada la aqoonsanaan waayey. wallaahi nama aqbalayso. ninkana waa nin 9 jira isagu waxaa meesha uu ku dhagowna iskagaba qalajistaa. hadda dhiishkiisu wuxuu qabtay buuhoodle. waxa aynu ognahay Taleex iyadoo oo reer Taleex ay leeyihiin war dhulbaana daayar dhulbaantu hadda islaamtiin anaga waa isku liidanay in cali galay dhibaatana ka dhacday markiina uu iska soo noqday ilaa ay haddana taagantay. waxaynu ognahay darkayn wallaahi buuhoodlana tiibu ka wada, laakiin waa hadday u martay cali ka soo jeedo. waxaan ka codsanaynaa wiilashoodan iyo gaadiidkoodan hadday dad islaaman yihiin inay naga kaxaystaan. hadday dad islaaman yihiin inay naga kaxaystaan gaadiidkoodan iyo ciidankoodan iyo dhowrkan gaari. haddii aanay naga kaxaysan wixii halkaa ka dhaca beesha Baharsama ka mas'uula. annagu ciidan fidma ma nihiin, waxaan nahay ciidan nabadgelyo. buuhoodle nabadgelyo u baahan yahay, dhulbaanta nabadgelyo u baahan yahay. wuxuu ku tallaabsanayana tal uga baahan yahay. taladii dhulbaanta way burburtay, cid ka wakiilina ma jirto. beelbeel baynu nahay deegaan waxaan lahay beesha Baharsama ee isimka dhulbaanta ah. saddexda tale Cali Khaliif idin la yimid mid waxaa tirahdeen ciidanka iyagu waa ciidan beeleed, Khaatimona dhulbaantaan ula simannahay. labana ciidan baad ku soo darteen. ciidankaad ku soo darteen maalintii balcad laga soo saaray wuxuu joogay saax dheer. maxaa ugu soo diri weydeen? maxaa sarmaan iyo meygaagle maanta ugu soo dirtaan is weydiinay? tol baynu nahay, waa wada dhalanay, nagama kiin qabato. waxaan idinka codsanaynaa inaad naga daysaan waxaas nagama kiin qabtaan. cadowgan ugu soo duulaa annagu ka waaban mayno. awalbana waanu iska celin jirnay, laakiin waxaanan raalli ka ahayn in cid kale noo soo hogaamiso oo nagu keento. ciddaas waayo marka si yaroo kale oo heesaba ku soo baxda oo Khaatimada ah xudun baaleed iyo banki Ceerigaabiyo buurihii Taleex badana ugu gaariyaan iyo baynuhu ku noolaa. nafta kuma baqayluna baqal laguma sheegine waxa ay ka boodeen ee bif ka wada yidhaahdeen sidii riyo jeex ka soo diday bifiina ay bif ka wada yidhaahdeen yaa ii binaaxo Khaatimo badaadeena waan ka baxay. horta anigu hadalkii intaas ku dhamaan ma aha mid loo bixinayo hadiyad nin yimid iyo nin joogay toona mid looga daba fadhiisanaya maaha. dad badan baa naftooda u waayay. marka ummadda waxaan u sheegaynaa ciidanku inuu 100% arrinka ka soo horjeedo. ummadda reer buuhoodle waxaan u sheegaynaa ama amiirtan jira inay gacan galiyaan oo ay dhambaal cad ka soo saaraan. maamul de horey loo sheegi jiraan meelu ka dhisan yahay arag waa magaalada hadda qasaya baa la yiri. ciidankii buuhoodlana halkan buu hadda ku sugan yahay, waa ka arkaysaan. marka de ciidan kalena meesha lagu moogay ciidankii buuhoodle waa kan. de waxaanu diyaar u nahay inaanu ammaanka magaalada inaanu sugno. waxbaan gani anoo gali iyo cayn joogo godka lagu cadaabiyo xuuga u hubeenshan. Cali Khaliif waxaan leeyahay
ilaa 2010kii yaanu ku lahayn kugu maallay maanta waxaanu ku leenahay kugu baaba'anay dadka reer Buuhoodlana waxaan leeyahay war reer Buuhoodlow nin baa horey u yiri baadida nin baa kula dayday daal la ka badan dadkuna moodi duul wada dhasho wax u doonayn inaad hashadayn abadkaaga ciidamada ammaanka gobolka Cayn ayaa saaka waxay la wareegeen ammaanka guud ee gobolka Cayn iyagoo sheegay inaanay cid ugu dambeyn doonin ammaanka gobolka Cayn waa sida hadalka u dhigeen xaaladda magaalada Buuhoodle ayaa maanta waxay u muuqatay mid aad u kacsan kadib markii ciidamada ammaanku guud ahaan la wareegeen xasiloonida deegaanka Buuhoodle وعلى عثمان فعل دكتور وركت الفيش كعلمي اسماعيل channel Buuhoodle